madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dowladda iyo ka shacbiga Somaliland waxa uu dhambaal tacsiya u dirayaa waxgaradka waayeelka aqoonyahanka qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo dhammaan shacbiga Somaliland Allah u naxariistay uu ka dhex baxay marxuum Korneyl Cabdilaahi Ciga Muuse Obsi oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa. madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu marxuumka ku sifeeyay halgamaa dalka iyo dadka taariikh ku lahaa laguna xasuusan doono kaalintii muhiimka ahayd ee uu ku lahaa xornimada Somaliland. inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. maanta waxaynu aasaynaa Cabdilaahi Ciga Obsiye oo ahaa shakhsiyad wanaagsan oo marka Soomaalidu qofka cabiraysa nin gobo ahaa dhaqan ahaan diin ahaan dad wada ahaan inta badan noloshiisa u soo huray samafal buu ahaa hadday qaran tahay hadday saaxiibkii tahay hadday jaarkii tahay nin ilaahay samafalka u diray buu ahaa oon malaha cidna ka eed sheeganayn u malayn maayo inuu jiray cid ay maanta la odhanayo waa iskhilaafeen ama adduun baa isku qabteen ama hadal qof ilaahay u dhaliyay buu ahaa akhlaaqda maanta sheekhi wasaadku inaga wacdayay ayuu ahaa dalka iyo danta guudna dadka ugu qaybta weyn ugu qaatay buu ka mid ahaa. nin kastoo yaqaan Obsi ka marag furaya markay xaq tahay inuu ku dhiiranaa hadday hadal runa tahay iyo hadday gar xaq tahay iyo hadday dulmi la waabinaya tahayba afiya adinba ninku aan ka gabanayn buu ahaa laakiin muu ahaa nin torogleeyo faan badan oo meelaha ka torogleeya oo ama qabiil ku faara ama wuxuu qabtay ku faaro tawtiis la dhageysto muu ahayn dadkeenu qofka caynkaas ma qiimeeyaan oo uma haystaan haddaan marka torog badnayn oo meelaha ka tawtawleen uma yaqaanaan in maaragtay libaaxa laakiin runtii waxaa shakhsiyad adag oo libaaxa ilaahay naxariisna ka waraabiyo qoyskiisii waa ka tacsiyeynaa carruurtiisii ummadda iyo qarankana waa ka tacsiyeynaa ehelkii asxaabtiina waa ka tacsiyeynaa waxa kale iyana maalintuu dhintay qudhadeedu waxay leedahay amuraha dee la yaabo waa 17 waa maalintii saaxiibkii lixla dhintay lixlana markuu maqaadiyar ku lahaa dawladda hoose hoosteeda ee arrimaha abaabka la bilaabayay ee arrinta hoos loo hadlayay dee raggooda bilaabay ahaa maqaaxida waxay u samaysteen inay ku gabadaan waana jimce waxa kale iyana la yaab leh isagu markuu xanuuntay iyo qoyskiisu waxa u dhoofeen Ingiriiska ayaa la geeyay waxa qaadada asxaab iyo ehelba yihiin iyaba waa mucjiso xabaashi xaaskiisa oo lagu waasay qaarna way ka horisaalkan ku aas iyana waa mucjiso kale ilaahay ninka uu naxariista astaamaha wanaagsan ee hojinay ka mid tilmaamahaas dhamaanteena sawiray wanaga soo carruurtiina ilaahay halkiis wax khayr qaba ha keeno sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. wa Nasir Abdulqaadir Abdiwahaab Nasir Talasame wararka telefishinka badda 24 TV magaalada Hargeysa. shirkadda diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaala gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti. soo dhaweyn diiran iyo si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso. waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso. wixii faahfaahin ah ee inta dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. Djibouti suuga